wadaadadii waa kala baxeen wadaadadii waa kala baxeen labay u kala baxeen mid caada qaadataa iyo mid oo damiirkiisa siin waaye inuu ku fiirsado dadkiisa dalkiisa dugaaga oo damiirkiisa siin waaye inuu ku fiirsado dalkiisa dadkiisa dugaaga iyo mid caada qaadataa ee u kala baxeen wadaadadii marka dadkaaga dhinac ka raac wadaadadu waa kala jabeen culimaadu diinku waa kala jabeen siyaasadina hore u kala jabtay markiina been laysku sheego waa laga fiican yahay kaliis taliyana dooni mayno dalkeenana uma rabno asaa shalay dibadda aaday asaana maanta dibadda aadayo asaa shalay dibadda aaday asaana maanta dibadda aadayo berina aadi doono hadduu u maleeyo in ay meesha tahayna meel la iska soo geli karo oo qof walbo oo la og yahay wuxuu ku soo hadlay shalayto in loo dhoola caddeeyo ee gacmaha la qabtee la dhaho oo u maleeyo in loo sacabtumaayo taas waxaan leeyahay soomaali waa ka baxday soomaali beri waxay galaysaa horumar iyo wanaag iyo kala dambeyntaasna caawaa la fadhiyaa kula haddad kula hadlaya la fadhiyaa berina waa lagu dhawaaqayaa oo waxaa waaye yacni dhoola caddayna ma ahan oo gacmaha in la haysto way bilaabmeen sidaa hore u sheegay waddadeedna waa lagu jiraa qodobyo badanaa la isku raacsan yahay wayna dhammaatay taas berina kii waxgarada uu joogaya kii caada qaadatana saaxiibayaal in been laysku sheego ma fiicno kii caada qaadataa ma sii fadhinayo indirectan kuu sheegayaa nabar iyo naxdin ma sii fadhinayaan indirect nabar iyo naxdin ma sii fadhinayaan qodobkaas waa qodob laisku raacsan yahay oo caawana loo fadhiyo oo wax walbo ka soo baxana ee guul iyo gobonnimo ku dhammaanayso meeshana ay noogu bilaabmayso midda aan ka shaksannahay waxaa waaye dhabarjabkaasna waxaan u haynaa sidaa ugu hortegi lahayd sidaa ugu hortegi lahayd horena waa ugu tusaale qaadanay waana u tusnay waxay yihiin laakiin mar walba waxaan danaynaa siyaasadda dibadda iyo siyaasadda hoose ee dhaqankeena
iyo diinteena ay dhigayso oo ah in dib loo noqonin hore loo socdo. ninka raba maanta inuu dib noo celiyo waa nabar iyo naxdin oo u weyn yahay farmaajo. runtaa la isku sheegaa oo u weyn yahay farmaajo. waa nabar iyo naxdin oo u weyn yahay farmaajo oona ku fashilmeen siyaasadda dalkii hooyo. waxa keliya looga bixi karana waxaa waaye in caada qaadatada la iska saaro oona dib dambe ee u dhicin in ay kursi ku yeeshaan dalkii hooyo. mase lagala tashto mase lagu aamino. waxaana taas naga keentay runta hadda la isku sheegaa waxaa waaye in dalkii cadowga dibadda noogu imaado oo cadowga dalka aayihiisa loogu aaminayo, dadka aayihiisa lagu aaminayo, birinta horumarkii ahaa in ay mar walbo ku fashilmaan. marka waxaa leeyahay culamaadiinka oo u weyn yahay Idriis oo ku xigo Umar iyo inta kale oo hadlin oo isku fikradooda wataan oo caado qaadatan ahayn inay u tuuraan dalkooda, diintooda iyo dalkooda. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.